asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalahayga waan idiin salaamay adduunka meel walbaad ka joogtaan kusoo dhawaada channelkeyga Munasom waa walaashiina Muna haddii aad nagu cusub tahay walaal waxaan idinka codsanayaa inaad nagu caawisaan subscribe like share iyo comment aad iyo aad ayay muhiim inoo tahay waan inoo dhiirigelin maanta waxaan idin wadaa video aad iyo aad layga soo dalbaday oo laygu dhahay cuntada caruurtana la wadaag marka waxaan idin la wadaagayaa 4 quraac oo kala duwan oo aad iyo aad u fudud waqti badan aanan qaadanaynin caruurtan aad u sameyn kartaan borotiin leh fitamiino leh nafaqo fiican ay ka helayeen oo kulul ilmahana maasha Allah energy badan ay ka helayaan subaxii ayaan jeclaystay in aan idin la wadaago marka haddii aad xiiseynaysid in aad sii daawato videoga insha Allah dhameyso afartaba anoo sameynayo ayaan idin la wadaagayaa insha Allah maadaama mardhow uu dhamaan rabo fasaxii oo lagu laaban rabo iskuuladii marka waxa aad iyo aad muhiim in ay caruurta quraac fiican subaxii ay cunaan si waxbarashadoodii ay ugu fududaato iyo concentrationkooda marka insha Allah hadda jikada ayaan isla galeynaa quraacda koowaad ayaan bilaabeynaa jikadii ayaa imaanay halkan waxaan kusoo diyaarsaday birtaabo waxyar saliid ayaan ku shubay saad arkaysaan waxaan sameynayna waxa waaye ukun ayaan ku shubay hal xabo ukun waayay ukunta waxaan rabaa marka ceesh ayaan isticmaalayaa ceeshka waa kana inta badan ceeshka madow ayaan isticmaalaa laakiin maanta kan cad ayaa ii yaalay halkii ukun inta aysan qalalin ayaa maxay ahayd ceeshka dul saaraysaa waxaan rabaa ukuntii ceeshka in ay isku dhagaan marka waxyar ayaan saan ugu riixayaa quraacdan idin la wadaagay waxa waa 4 quraac oo maasha Allah aad iyo aad easy ah waqti baan qaadanaynin daqiiqada ayaad ku sameynaysaa caruurta intay musqusha ay ku sii jiraan ayaa maxay boobsin kartaa marka waqti badan ba ma qaadanaysa marka wax yar waa sugaysaa ilaa ay ukuntii ay ka qalasho markaasina waad gidinaysaa in ay isku dhigto ayaa la rabaa ceeshkii ukunta saad arkaysaan waa kana ukuntii ceeshkii way isku dhigtay wax yar ayaa dhinaca kaleeto asigana kululeynayaa cuntadaani maasha Allah aniga ayaa run ahaantii aad iyo aad ayaan u cunaa maalmaha daasan oo kala quraacda kan ayaan ka dhiganaa aad iyo aad ayuu u fudud yahay waana kana sidaan ayay ku soo baxaysaa waan idin la wadaagi doonaa waxaan ku siin doonaa insha Allah subaxii waxa aad iyo aad muhiim u ah in caruurta cunto fiican ay cunaan haday kuleel tahay haday qabow ay tahay waxbarashada ay u fududeynaysaa concentrationka ay ka caawinaysaa ilmihii daal iyo in uu ka muuqdo ma ahan energy fiican in ay heli karaan ayaa fiican marka waaba kana quraacday waaba diyaar 2 daqiiqo miya ma aqaan ayaba diyaar ay ku noqotay haddana waan soo diyaarinayaa waan soo jarjarayaa wixii aan ku siinayo ayaa insha Allah idin la socodsiin doonaa sidaad u aragtaan waa kana waan soo jarjaray ceeshkii iyo ukuntii oo isku dhigtay waxaa maxay ahayd baaquligan aad arkaysaan wax yar oo ka jab ayaan ku shubay oo caruurta ay ku daaranayaan cheese yar halkaas ayaan ka saar iyo canab yar oo aan u soo dhaqdhaqay oo aan u jarjarayo quraacdani maasha Allah cunugii cuno aad iyo aad ayuu u dhargayaa maasha Allah nafaqo iyo borotiin iyo fitamiinana way leedahay quraacdana way kulushahay muhiimadu waa ilmaha in rooti kaliya iyo cereal in aan la siinin marka quraacdii labaad ayaa inoogu xigto ayadana waa ukun ayaan sameyn doonaa insha Allah marka waa kana ukuntii waa soo garaacay hal xabo ukun waaye wax yar dhadhan ayaan u soo yeelay ukunta marka caadi ayaa loo karinayaa gees ayaa rabaa inaan ka saaro rooti ayaan ku siinayaa subaxii waxa horta aad ay u wanaagsan tahay ilmihii inay ukun ay ku quraacdaan maadaama waqti badan horta ma lahayo oo jikadii waqti yar ayaa lagu jiraa waqtigu iska kooban yahay ukuntan maasha Allah borotiin ayay leedahay fitamiino ayay leedahay maasha Allah ilmaha waxbarashadoodana aad iyo aad ayay uga caawinaysaa marka ukunta maasha Allah xoog ayaan u isticmaalnaa ilmaha waxa jiro oo caanaha aan cabayno kala markaas waxa sameyn kartaa ukunta ayaad caano yar ugu qasaysaa markaad ukunta garaacisid ayaa wax yar caano inaad ugu shubtid ayaa dubi kartaa ilmaha aan jecleen caanaha kala si ayagana ay ugu faa'iideystaan maadaama calcium badan caanaha uu leeyahay haddana saxankii ayaan soo diyaarinaynaa saad u aragtaan cuntadii sida ku soo baxday waxaan isticmaalayaa waxa way farmaajadani hadda koornoon idin la wadaagay ilmaha aanan cunin farmaajo siyaabaha kale oo farmaajo aad ku siin kartaan farmaajahan saad arkaysaan waa kana saan ayuu u jilcan yahay waxa loogu talagalay rootiyada wax walba in lagu cuno marka ilmihii farmaajo hadii uu ka diidayo kala sidaan ayaa kan oo kala isticmaali kartaa rootiga ayaad u marinaysaa sida subag camal ayaad u marinaysaa maasha Allah dhadhan macaan uu leeyahay asxaabtii insha Allah soo tijaabisay bal hoos feedback igu soo qora ilmihiina ma jecleysteen ma idin ka qaateen ma cuneen marka waa kana rootigan ayaan u mariyay ukuntii dhinac ayaan ka saaray iyo wax yar oo liin ayaan u soo jarjaray
marka waa kana quraacdiina sidaan ayay kusoo baxday. quraacda ugu fudud waaba tanaaba ukun kaliya ayaad shiilaysaa. sababtana oo ilmaha yacni dhowr option aan usii waxaa waaye waxaa laga yaabaa rootiga jab inay ku cunaan, wax yar ukun inay ku cunaan, wax yar liin inay ku cunaan. maasha allah qasab maaha yacni inay wada dhameeyaan, laakiin ilmihii option markaad siisid waxaa moodaa maasha allah yacni dhowr wax inay cunayeen ay tijaabinayeen. laakiin rooti kaliya hadda halkan usoo saari lahay cuntadiina ilmihii ma xiise gelinayo, rooti kaliya inuu jab yar inuu iga cuno ayaa la arkaa. marka sidaas darteeda caruurta yacni waxaan jeclahay dhowr option in aan siiyo meeshan usoo saaro, oo waxyar rooti, waxyar ukun, waxyar qudaar hadday ii cunaan alxamdulilah. quraacdana waa quraac kaleeto asna maasha allah easy ah. halkan waxaan kusoo diyaarsada waa fuul aan soo karsada waaye. xalay ayaan kariyey, frinjeerka ayaan gashtay, baaquligaas ayaan ku shubtay. ilmahaas had aragtaa inta badan fuulka ma jeclo, laakiin maasha allah nafaqo aan caadi ahayn ayay fuulka ee leedahay. borotiino badan ayaa leedahay, fitamiino badan ayaa ku jiro. marka ilmaha maadaama aysan jecleen fuulka inay cuntada ay ku cunaan, waxaan u sameeyaa rootiga ayaan marinayaa saad arkaysaan, si subagii camal ayaan u marinayaa. markaan mariyane waan isku daboolayaa. markaan isku daboolo mashiinkaas ayaan isticmaalayaa, waa shiilayaa, waxyar gariil ayuu ii noqonayaa. haddii aad rabtid farmaajo ayaa maxay dhexda ka gelin kartaa si ugu dhalaalo, suugo camal ayuu u noqonayaa. inaba caadi ma ahan. quraacdan aniga ayaaba qaasatan aad iyo aad u jecel. rootigana waa kana markii aan soo bixiyey sidaani ayuu noqonayaa. dhexda ayaan kala jaray. jabkaas haddii uu ku cuno waxyaroo farmaajo yarna meesha ayaan kasoo saaray. farmaajo aad iyo aad u macaan oo jilcan waaye. liinna halkan ayaan kasoo saaray. inaba caadi ma ahan quraacdaani, qaasatan aniga ahaan ayaaba maalmaha degdegsanaha ayaan samaysto oo aan horay usii qaataa. quraacdani saddexaad waa tanaa. habeenka ayaa fuulka kale iska sii diyaarsanaysaa. subaxina maasha allah rootiga ayaad marmarinaysaa, mashiinkaasi ayaad ugu sameynaysaa. mashiinka haddii aadan haysanin birtaawo ayaa ku kululeyn kartaa, waa caadi. quraacdii afraad ayaa inoo soo hartay, waa tanaa. hadda kor ayaan idinla wadaagay. waa maxay ahayd mashaari oo laga sameynayo bariis laga sameynayo waaye, oo caano, 2 caano oo kala duwan ayaa lagu qasayaa. inaba caadi ma ahan. caruurtana aad iyo aad ayay u jecel yihiin. waxyar malmalaada ayaan dusha ugu saaray iyo caano yar ayaa lagu siinayaa. inaba caadi ma ahan. casri ahaan ayaad u siin kartaa. marka walaalayaal waxaan rajeynayaa insha allah inaad ka hesheen 4 option oo kala duwan oo quraacda aan idinla wadaaga. caruurtan insha allah ku tijaabiya. muhiimadana ma ahan yacni caruurta saxanka waxaad u saarto dhan yacni inay wada dhameeyaan. muhiimada waxaa waayey waxyar in walba in ay ka taabtaan. haddii ay dhameeyaan alxamdulilah, haddii aysan dhameyninna waxaad ogtahay ilmahaada inuu yacni cunto fiican uu ku cunay. waxyar ukun, waxyar rooti iyo waxyar fruut haddii uu ku cunay maasha allah ilaa qadada yacni wuu ishayn karaa. cunug daaldaalana yacni ma noqonayo. maasha allah wuxuu soo cunay cunto borotiin iyo nafaqo leh oona kulul. muhiimadan waxaa waaye ilmaha inaad subaxii cunto kulul aad siisaan. inta badan anigana juus subaxii ma siiyo, marmarkoo weekendiga way dhacdaa, laakiin intay iskuulka ay aadayaan caano ayaan siiyaa. koob yaro caano ayaan u qandiciyaa oo maxay ahayd ay ku cabaan cuntada walbo. marka insha allah idinkan inaad ka heshan ayaan rajeynayaa. fiidiyowadan oo kalena haddii aad xiiseynaysaan insha allah hoos iigu soo qora, waan idin soo badinayaa. aad iyo aad u mahadsantihiin sida quruxda badan aad ii daawateen, aad ii la socodseen. 1 jeer ayaad mahadsantihiin asxaabteyda, meel walba adduunka aad ka joogtaan. kheyr ayaan idin dhaafay insha allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.